أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي. وصلاة الله وسلامه وبركاته على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. انت قلبك انت إنه ربي هرتاغناي sidee baynu uga soo jeedinaa adduunyada iyo mashquulkeeda, waswaaska shaydaanka ugala dagaalanaa, salaadeena uga dhignaa salaad rabbi tabaaraka wa tacaala aynu kula xiriirayno. masalada waxaan u celcelinaynaa ahamiyadda iyo muhiimadda ay qofka muslimka ee dareensan u leedahay. waa mas'ala uu ugu baahi badan yahay qofka ugu cilmiga badan dadka, waa mas'ala uu ugu baahi badan yahay qofka dadka ugu cabsida badan. sidaa daraadeed waxaanu ku soo qaadanaynaa xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam Awf ibn Malik uu ka warinayo. wuxuu leeyahay baynamaa naxnu juluusun cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam daata yawmin, wuxuu yidhi saxaabigaasi Awf ibn Malik, maalin maalmaha ka mid ah annagoo la fadhina nabiga calayhi salaatu wasalaam, fanadara ila asamaa'i, rasuulku samada iyo cirka ayuu fiiriyey. uma qaala, markaasaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haadaa awaanu lcilmi an yurfac, haadaa awaanu lcilmi an yurfac, kani waa cilmigii dhowaantiisii la qaadi lahaa, yacni cilmigii oo la qaadayo la rafcinayo weeyaan oo kor la qaadayo. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد، من أنصاريا ورجي ميشا فديي كمدا أولي هذا زياد بن لبيد أيا وحيري أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله قد علمناه وعلمنا أبناءنا ونساءنا. وحي رسولك الله ما علمي baa la qaadaya iyadoo dhexdeeda kitaabkii uu yaalo, masaaxiiftii ay taalo, quraankii aanu baranay, ilmaha iyaga iyo naagaha iyaga iyo dumarka iyagiina aan barnay. faqaala lahu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, nebigii allah ku yidhi ziyaad ibnu labiid, in kuntu la adunnuka min afqahi ahli lmadiina, wuxuu labiidow ziyaad ibnu labiidow waxaan kugu tirin jiray dadka magaalada jooga madiina dadka ugu cilmiga badan, ugu fahamka badan inaad ka mid tahay. markaasaa waxa weeyaan yani nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamayaa yani waxa weeyaan siduu masaladan u fahmi waayo ama khaladku u fahmay. cilmigu inuusan ahayn kutub badan oo meel la dhigo ama quraan badan oo markaa caruur iyo dumar iyo raggu ay bartaan, masaladu inay intaa ka gun weyn tahay baa nebigu u tilmaamaya. markaasaa nebigu wuxuu u sheegay saxaabada dalaalata ahli lkitaabi wa cindahum maa cindahum min kitaabi illaahi. wuxuu yidhi bal nimanka nasaarada iyo nimanka yuhuudda ah bal fiiriya, kutubtii dhexdooday taallaa, way taxriifiyeen, way ku camalfali waayeen, way dayaceen. macnaha cilmiga iyo fahamku ma aha kutub badan baa inoo taalla sida maanta dad badan ee muslimiini waa kaasoo marfash kasta kutubtu waa buuxaan, meel walba iyo guryihii bay buuxiyeen. laakiin camalka intaa in la eg baa lagu dhaqma ama lagu camal falaya waa mas'alo qof kastoo oo qiyaasi karayo uu qiimeyn karo inta camalkeenna uu la eg yahay iyo xiriirka aynu kitaabkeenna la leenahay. markaasaa waxa weeyaan nin la oran jiray Jubayr ibn Nufayr
ayaa markaa waxa weeyaan wuxuu la kulmay Shadaad ibn Aws saxaabigii la oran jiray ayuu kula kulmay meesha masaajidka lagu tukado markaas wuxuu yiri xadiidkan laftiisa ayaan uga sheekeeyay oo warinaya Auf ibn Malik markaas uu yiri sadaqa Auf warkaas runtii way meesha ayaan fadhiyay buu markaas wuxuu yiri hal tadri ma raf'u al-ilmi wa meesha u jeedno ma garanaysaa cilmiga kor qaadidiisa iyo cilmiga la qaadaya wuxuu yahay qultu baan ku yiri la adri ma garanay cilmiga la waayayo ee la qaadaya wuxuu yahay muxuu yahay qaala wuxuu yiri waxa loo jeedaa buu yiri al-khushu'u fi as-salati hatta la tara khashi'a waxa la kor qaadaya la waaye nabigu sheegayo waa khushuucda salaada ilaa aad dadka dhexdoodaba ka weydo ruux khushuucsan salaada waa la tukanaya waana la yaacaya qofka saadii la imtixaamo oo la imaamku muxuu akhriyay ama adigu maxaad akhriday qofka soo adeey dantaada ku tahay bal naftaada xisaabi xaasibu anfusakum qabla an tuhasabu adigu calaamada su'aalka isweydii waxaad xusuusataa waxa way Xudayf ibn Yaman hadalkiisi ajaa'ibka badnaa ee oran jiray awwal ma tafqiduna min diinikum al-khushu' waxa ugu horeeya ee aad diintiinan aad weydaan oo la waaya khushuucday noqonaysa wa aakhiru ma tafqiduna min diinikum as-salah waxa ugu dambeeyay gacantiina ka baxaana waxay noqon doontaa salaada markaas wuxuu oran jiray hatta tadkhul al-masjid فلا ترى فيها خاشعة إلى أن مساجدا أو لبوحات سوق ليسا مركاسات وحات كبا وايسا قف مركاس صلاة قلبي سوء كسو جيدو أو خشوع دا إلى لنا أما وحا إلهي وكلها اللي تبارك وتعالى دريمية إخوة الإيمان موضوع نيئها كيف نخشع في الصلاة الله إنه أنفعه إن شاء الله تعالى وإنه بريء مثل مذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.